جيشنا باسل لا يخشى عدوه يردعه في الحروب صوماليا بلادنا waxaa haatan inaga xidhan oo aynaan dareemahayn qof miisaaniyad weyn shakhsiyad ahaanteenna ku leh maadaama oo aan nahay dad Soomaaliya isla markaana jecel wanaagga iyo khayrka la rabo walaalkood mana doonayno inuu sii xidhnaado qofkaasi weliba qofkaasi waa mid ka weyn dadka caadiga ah maadaama uu ahaa samafale dadku ay ku xidhan yihiin oo ummadan ka soo qaaday xagga hoose isla markaana u sameeyay waxyaabo ay noloshooda ku kifaaxaan kaasi nagama mudna inaynu xidhno iyo inaynu dilno toona haddaba muwaadin haddii aad adigu isu aqoonsan tahay muwaadin reer Somaliland ama isu aqoonsan tahay mid reer Soomaaliya ma ogashay in Cabdimaalik Coldoon uu ku sii jira jeelka haddiiba aad ogashahay commentiga xagga hoose noogu reeb aniga ahaan haddaan ra'yigayga cabiro ma doonayo inuu kaasi sii xidhnaado mana rabo in mar dambe la xidho mana doonayo in dhibaato la gaadhsiiyo nafsadiisa maadaama uu dad wax maxaysataa uu naftiisa u huray isla markaana uu dad badan nolosha heerka hoose ka keenay mana rabo inuu halkaa ku sii jiro taasina waa mid nagu abuuran haddaan Soomaali nahay haddaba waxaa xusid mudan in dad badan oo hardoorka Somaliland ay la hadleen madaxweynaha Somaliland isla markaana ay ka codsadeen inuu Cabdimaalik Muuse Coldoon uu iska cafiyo maadaama uu cafiyay maxaabiis ka badan 500 iyo dheeraad mar kalena uu cafiyay maxaabiis iyaguna aad u fara badan isla markaana uusan marnaba ku soo dirin Cabdimaalik Muuse Coldoon taasina waxay muujinaysaa inaanu wax tixgelin ka mudnayn madaxweynaha Somaliland dadka haldoorka ah iyo wadaadadu Somaliland waana dastuur jabin xaqeedii lagu tuntay aniga ahaan taas waxaan u malaynayaa inay u dhiganto qaab dictatornimo isla markaana kaligii talisnimo waanay u dhigmayn mid dimuqraadiyad lagu soo doortay haddaba waxaa xusid mudan in maalintii shalay ahayd ay midowga Yurub warbixin ay soo saareen oo kala gudbiyeen Somaliland iyo Soomaaliya Somaliland ugu baaqeen inay si degdeg ah oo bilaa shuruud ah ay u sii deyso wariye samafale Cabdimaalik Muuse Coldoon xagga ay Soomaaliyana ugu baaqday wariye Gurbiye inay sii deyso xorriyadiisana si degdeg ah ugu celiso haddaba waxaa xusid mudan madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ma sii deyn doonaa wariye Cabdimaalik Muuse Coldoon maadaama oo ay midowga Yurub sheegeen inuu si bilaa shuruud ah ku sii daayo Cabdimaalik Muuse Coldoon run ahaantii hadday taasi dhacdo madaxweynuhu waxa uu ka tegi doonaa taariikh aad u xun taasoo uu ku yeeli waayey dadkii haldoorka ahaa iyo shacabkii Somaliland inuu u sii daayo Cabdimaalik Muuse Coldoon isla markaana uu yeelo haddaba adiga ahaan maxaad ka aaminsantahay haddii uu Muuse tixgeliyo nin aan dalkiisaba u dhalan isla markaana aan aqoonin cidda uu yahay iyo mid dalkiisa u dhashay lana dhashay kaasoo uu maamulo isla markaana codkiisa ku doortay kana codsaday inuu qof u sii daayo isla markaana uu diiday yeelayna mid kale oo ka fog kaasoo aan xataa cod yarna siinin allaha ka yeelay haddaba Muuse dembigaasi muxuu noqonayaa uu ku dhaco haddii uu yeelo isla markaana uu sii daayo haddaba imika ceebta ugu weyn ee taagan ayaa waxa ay tahay Muuse intii uu dhawaamo uusan sii deynin Cabdimaalik Muuse Coldoon haddaba imika waxay ku noqonaysaa ceeb weyn haddii uu xataa qasab ku sii daayo maadaama oo ay labada dhinacba uu dab kaga shidmayo dhinacii akhyaarta reer Somaliland iyo dhalinyarta iyo haldoorka Somalilandna dab baa kaga socda dhankii midowga Yurub iyo gaaladana dab baa kaga socda
haddaba muuse haatan wuxuu ku jiraa laba daran mid dooro. haddii uu doorto inuu sii daayo cabdimaalik muuse coldoonna taasi waxay ku noqonaysaa ceeb weyn mudane muuse biixi cabdi madaxweynaha Soomaaliya. haddaba waxaan halkan kugu tusi doonaa coldoon Somaliland ma jecel yahay mise wuu kasoo horjeedaa. waxaan ku tusi doonaa muuqaaladan soo socda. fadlan ha ka bixin adigoon sii daawan. kanaalkana subscribe noo saar haddii uu fiidiyoyadan soo gelina ku qanco. بلادنا نحبها نعشقها بالأرواح نفديها سوماليلاند بلادنا نحبها نعشقها بالأرواح نفديها وجيشنا باسل لا يخشى عدوه يردعه في الحروب وجيشنا